السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي ونكسن صاحب الميل والبوجوكتان وسلامتين عافمad qab iyo nabad qab baan rajeynaya hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar channelka like tana ku dhifo sina share garee waad maasantiin dhamaantiin qisada maanta inay haya waxay ku saabsan tahay saaxiibayaal damaca iyo hunguri xumadu inay marmarka qaarkood af libaax iyo wax ka daran ku geliso iyo cawaaqib xumada laga dhaxlo qofku inuu makriyo shirqool qof walaalkii oo muslima aw u maleego oo hadhow ay ku soo noqonayso ilaahay leeyahay wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayrul maakiriin soo quraysh la hadlay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay way ku dhagrinayaan ilaahayna iyagu dhagraya kuwa wax dhagrana ilaahay baa ugu khayr badan subxaanahu wa ta'aala qisadu waxa ku bilaabmaysaa xilli ahayd waqtiyadii dagaalkii koobaad ka horreysay ayaa waxaa jiray nin ganacsado ah oo nolol ahaan dhexdhexaad ah oo aan aad iyo aad u qani ahayn faqiir hoose oo tabaqada hoosena aan ahayn ninkaasi ganacsado ayuu ahaa waxa uu ka ganacsan jiray lo'da ayaa uu ka qaadi jiray Ciraaq iyo Iiraan iyo dhulka intuu ka kaxeeyo oo ka iibsado ayuu dhulka Shaam geyn jiray sida Lubnaan iyo Suuriya dhulkaas uu geyn jiray lo'da markuu iibiyo lacagta aw lo'da ku iibiyo dib ayuu Suuriya iyo dhulka aw Shaam u geynayo uga soo iibin jiray dhar iyo alaab kale kadibna Ciraaq buu ku soo celin jiray dadku ka iibin jiray sidaas ay noloshiisu ay ahayd ninka ganacsadaha ninkani wuxuu ahaa nin muslima oo cibaado badan oo soonka sunnaha ku dadaala xoolihiisa aan kaliya cunayni masaakiintana wax ka siiya nin infaaq iyo nafaqa mataqaanay sadaqad fara badan la iman jiray ayuu ahaa waxaa nin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka cabsooda shaqaale ayuu lahaan jiray lo'da la sii kaxeeya inta jidka lagu sii jiro qaaru ilaaliya oo lo'da kala shaqeeya ayuu lahaa waxa dhacday waqtiyada kamid ah iyadoo xaaladdu saas tahay in baraf uu da'o roob baraf wata ayaa da'ay roobkaasi oo dhammaan caam yeelay bariga dhexe badankiisa kaasi oo keenay mushkilad aad iyo aad u daran mushkiladaasi oo ahayd in xoolihiina uu laayay beerihiina uu baabiiyey dadkii beeraleyda ahaa xoolo dhaqatada ahaa labadii shay ee ku noolaayeen saameyn weyn buu roobkaas ku yeeshay ninkan isna kama maqnayn dhibaatadaas oo kamuu badbaadinay saameyn bay ku yeelatay toos ah iyo mid taban labadaba ta toos ay ku yeelatay waxa ahayd in loodiisii oo barafii ku dhacay oo ay badankayga dhinteen oo ilaa afar sacab oo soo haro kaliya dhanka kale ee taban ay u saameysana waxa ahayd in calafkii ay daaqi lahaayeen iyo dhulkii ay daaqi lahaayeen oo baraf ku fadhiistay kadibna uu baabiyo gubay waxaa dhacday markii 4 saac u soo hadheen muddada uu baraf ku da'ayo safarkiisii buu ku jiray oo dhexdu sii marayay lo'dii uu watay 4 saac buu soo hadhay nimankii shaqaalihii uu iska fasaxay wuxuu yiri 4 anaa ku filan oo iib geyn bal inuu iska fasaxaado waayo waxa la kaxaysaanba meesha deema yaalo 4 anaa ku filan 4 buu iib geeyay isagoo isla bal deemihii bal wuxuuna ka bixiso moodo bixin kartee wixii ay bixin weydana dadku ka sugan waa u socday markii uu dhex maraayo ayuu habeenkii ugu galay meel tuulo ah waxaana dhaqan ahaan jirtay dhulkaasi uu sii mari jiray ma lahayn hoteelo loo hido oo wax laga cuno oo qofku lacagtiisa wax ku cuno balse qoysaska dhulka degan ayaa loo martii jiray
guri ayuu albaabkii ku garaacay, waa laga furay, waa la soo dhoweeyey, lo'dii baa loo xireeyey, calaf baa loogu dhigay iyo daaqay cunaan, isagii baa la soo martiyey, cunto oo cunaa la siiyey. Guriga waxa degan oday iyo xaaskiisii iyo wiil ay dhaleen oo 20-ka hadda wax u dhaafeen. Markii ay soo dhoweeyeen marti sooreen, gurigu 2 qol buu ka kooban yahay. Qolna islaantii odayga ayaa seexda, qolna wiilkooda seexda. waa la waariyey, waa la caweeyey, dibadda lagu wada caweeyey. Qolkii wiilku seexanayay ayaa 2 firaash loo kala dhigay. Markii loo kala dhigay, islaantii odaygii qolkoodii bay iska galeen, wiilkii iyo wax isku soo hadhay ninkii ganacsada ahaa. Intaas ayaan ku deenaynaa qaybta koowaad. La soco qaybta labaad. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.